أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم dhammaan ardayda Soomaaliyeed waa mar kale iyo channelka Ibrahim Solution oo aad ugu barateen inuu idin soo gudbiyo waxyaalaha ku saabsan waxbarashada khaasatan hadda waxaa noo socdo mowduuca ah imtixaanaadka dawliga ah ee la qaaday sanad dugsiyeedkii tagay ee ahaa 2020 insha Allah maanta waxaan duubeynaa maadada cilmiga bulshada fasalka 8aad maadada cilmiga bulshada qaybta koowaad imtixaanka waa goobageli jawaabaha xarafka saxda ah waxaa saaran 8 dhibcood su'aasha koowaad waxaa weeyaan lakabka sare ee caradu aad ayuu jawaabteeda waxaa waaye jiin waaye oo ah khafiif u yahay. Su'aasha labaad dhaqaalaha dalka Jabuuti waxa uu ka yimaadaa jawaabteeda waxaa waaye xarafka da oo ah adeega. Su'aasha saddexaad way ka maqan tahay tan afraad sababta cirifka waqooyi ugu qabowdahay adduunka waxa ay tahay sababta waxay tahay jawaabta waxaa waaye ba oo ah dhulbaraha ayuu ka fog yahay. Su'aasha shanaad xaalufinta deegaanka waxaa ka mid ah jawaabteedu waxaa waaye ta oo ah dhirta oo la jaro. Su'aasha lixaad way maqan tahay su'aasha toddobaad waxaa waaye beerista dhir iyo caws cusub ayaa loo yaqaan jawaabteedu waxaa waaye jiin oo ah dhirayn. Su'aasha sideedaad dalka Jabuuti waxa uu xornimadiisa qaatay sanadka markuu ahaa jawaabteedu waxaa weeyaan ba oo ah xarafka ba oo ah 27 Juun 1977. Su'aasha sagaalaad madaxweynihii ugu horeeyay ee dalka Algeria waxa uu ahaa jawaabteedu waxay noqonaysaa ja oo ah Axmed bin Bella. Su'aasha tobanaad lacagta laga isticmaalo dalka Algeria waxaa la yiraahdaa jawaabteedu waxaa waaye ba oo ah dirham. Su'aasha 11aad boqortooyada Morocco waxa ay ka mid tahay ururka jawaabteedu waxaa weeyaan xarafka xa oo ah ururka loo yaqaano OPEC. Su'aasha 12aad muddada saddexda geesood ah ee loo yaqaano ahraamta waxaa laga helaa jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka ta oo ah Masar. Su'aasha 13aad dhulbaraha Soomaaliya waxa uu ka maraa tuulada jawaabteedu waxay noqonaysaa su'aasha 13aad jiin oo ah sanguuni. Su'aasha 14aad dalka Tunisia waxa ay qaaradda Afrika ka dhacdaa jawaabteedu waxaa weeyaan su'aasha 14aad jawaabteedu waxaa weeyaan jiin ama xarafka ja oo ah waqooyi. Su'aasha 15aad qoraxdu waxa ay ka soo baxdaa jihada dhanka jawaabteedu waxaa weeyaan su'aasha 15aad jawaabteedu waxaa waaye xarafka ba oo ah bari. Su'aasha 16aad meel kasta oo dhulka korkiisa ka mid ah waxaa la tilmaami karaa haddii la og yahay. Su'aasha jawaabteedu waxay noqonaysaa 16aad xarafka jiin ama xarafka ja aan iraahdee dhig iyo lool. Su'aasha 17aad dhulka in uu hal isrog ku sameeyo udub dhexaadkiisa waxa ay ku qaadataa jawaabteedu waxay noqonaysaa ta oo ah 24 saacadood. Su'aasha 18aad labadii dhigoodba waxa ay isu jiraan masaafo dhan
masaafo dhan ba oo ah 64.9 mayl. Su'aasha 19aad jihada ay qoraxdu u dhacdo waxaa loo yaqaanaa. Jawaabteedu waa ta oo ah galbeed. Su'aasha 21 way maqan tahay. 22 dowladaha uu maro webiga Nile waxaa ka mid ah. Su'aasha 23 jawaabteedu waxay noqonaysaa ba oo ah Jabuuti. Su'aasha 23aad calaamadaha lagu garto cudurka jadeecada waxaa ka mid ah. Jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka ja oo ah indho xanuun. Su'aasha 24aad habka jadeecada looga hortagi karo waxaa ka mid ah. Jawaabteedu waxay noqonaysaa ba oo ah xirashada mara kaneecada. Su'aasha 25aad mid ka mid ah xanuunada ugu da'da weyn dunida waxaa ka mid ah. Jawaabteedu waxay noqonaysaa ta oo ah duumada. Su'aasha 26aad dhacdadii dhagax tuur waxa ay dhacday. Jawaabteedu waxay noqonaysaa ta oo ah 1949. Su'aasha 27aad madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka Soomaaliya waxa uu ahaa. Jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka ja oo ah Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde. Su'aasha 28aad madaxweynihii labaad ee dalkeena Soomaaliya waxa uu ahaa. Jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka ca oo ah Cabdirashiid Cali Sharma Arke. Su'aasha 29aad Cabbaasiyiintu waxa ay taliska kala wareegeen khulafadoodii. Jawaabtu waxay noqonaysaa ta oo ah Umayyadeed. Su'aasha 30aad khaliifkii ugu horreeyay ee dowladda Cabbaasiyiinta waxa uu ahaa. Jawaabtu waxay noqonaysaa xarafka ba oo ah Abu Jacfar. Su'aasha 31aad magaalo madaxda dowladdii Cabbaasiyiinta waxay ahayd. Jawaabtu waxay noqonaysaa. Su'aasha 31aad jawaabtu waxay noqonaysaa xarafka ta oo ah Baghdaad. Su'aasha 32aad magaalo madaxda Cabbaasiyiinta dhismaheedu waxa uu socday muddo dhan. Jawaabtu waxay noqonaysaa xarafka ta oo ah 4 sanad. Su'aasha 33aad meelaha uu maro dhulbaraha astaamaha lagu yaqaano waxaa ka mid ah jawi. Jawaabtu waxay noqonaysaa xarafka ba oo ah qabow. Su'aasha 34aad Xaabo Cusmaan Xaabo Taako waxa ay ahayd. Jawaabtu waxay noqonaysaa ba oo ah nambar 31 32 33 34. Xaabo Cusmaan Xaabo Taako waxa ay ahayd. Jawaabtu waxay noqonaysaa xarafka ba oo ah halgamaa. Su'aasha 35aad fayraska keena jadeecada waxaa loo yaqaanaa. Jawaabtu waxay noqonaysaa. Su'aasha 35aad jawaabteedu waxay noqonaysaa ba oo ah morbillivirus loo yaqaan. Su'aasha 36aad dalka Eritrea dhinaca koonfur bari waxaa ka xiga dalka. Jawaabtu waxay noqonaysaa ta oo ah Soomaaliya.
Su'aasha 37 Magaala madaxda dalka Soomaaliya waa jawaabtu waxay noqonaysaa ta oo ah Muqdisho. Su'aasha 38 Ra'iisul Wasaarihii ugu horreeyay ee dalka Suudaan waxaa noqday. Su'aasha 38 jawaabteedu waa xarafka ta oo ah Ismaaciil Ashcari. Su'aasha 39 Magaala madaxda gobolka Boqol waa. Jawaabtu waxay noqonaysaa 39 xarafka ta oo ah Xudur. Su'aasha 40aad waxaa weeye arday dhaqdhaqaaqa qoraxda waxaa loo adeegsadaa sheegidda. Jawaabtu waxay noqonaysaa xarafka ba oo ah waqtiga. Su'aasha 41 Webiga Juba waxa uu ku dhumaadaa tuulada. Jawaabtu waxay noqonaysaa ardayay xarafka ja ama ca oo loo qoran oo ah dabaysha. Webiga Juba waxa uu ku dhamaadaa tuulada. Jawaabtu waxay noqonaysaa xarafka ca oo loo qoran bacadweyn. Qaybta labaad usoo gudubnay imtixaanka oo ahayd isku adaadi. Waxaa ugu horeeya SYL waxaa ku aadan ururka gobonimada Soomaaliyeed. Lama degaan 43 lama degaan maxaa la dhahaa? Waxaa ku aadan meel aan geedo lahayn waa lama degaan. Su'aasha 44aad 26 Juun 1960 jawaabteedu waxaa weeyaan oo ku aadan gobollada waqooyi ayaa ka xoroobeen gumeystihii Ingiriiska. Su'aasha 45aad Furaat iyo Nile waxaa ku aadan ardayda Furaat iyo Nile waxaa ku aadan magacyada wabiyo. Su'aasha kale ilma aragto jawaabteeda waxaa ku aadan arday jeermis ama bacteria. Xeebaha iyo kaymaha waa meelo ku wanaagsan dalxiis. Xeebaha iyo kaymaha waxaa ku aadan waa meelaha ku wanaagsan dalxiiska. Su'aasha kale ee 48aad 12 Oktoobar 1954 waxaa ku aadan. Su'aasha 48aad waxaa ku aadan gobollada koonfureed ayaa ka xoroobeen gumeystihii Talyaaniga. Su'aasha kale 49aad 1 Luulyo arday 12 Oktoobar 1954 waxaa ku aadan la taagay calanka Soomaaliya. Waa xilligii la taagay calanka Soomaaliya. Su'aasha 49aad 1 Luulyo 1960 xilliga xorriyadda waa kana. Waxaa ku aadan gobollada koonfureed ayaa ka xoroobeen gumeystihii Talyaaniga. Najaashi iyadana waxaa ku aadan boqorkii caadilka ahaa ee Ardul Xabasha. Arday waxaan filayaa inaad fahantiin aadna ka faa'iideysan doontaan. Asxaabtiina la wadaaga janaalkana subscribe noo dhaha.
Waa mahadsantihiin.